su-aasha kale waxay tahay muxuu yahay daabidka ku noqod la-aanta aan lagu noqonayn dembiga marka laga hadlayo toobadda ama xukunku muxuu noqonayaa ruuxa ka toobad keena dembi haddana dib ugu noqda isagoo mar walba go-aansan inaanu dib ugu noqon laakiin ay ka xoog badan tahay hawada iyo shahawaadkiisu daabidka ku noqod la-aanta aan dembiga lagu noqonayn waxaan filayaa inuu ujeedo casmiga la goosanaayo inaan lagu noqon waayo shuruudda towbadda kama mid aha dembiga inaanu dib ugu laabmin laakiin shuruudda towbadda waxaa ka mid ah inuu go-aansado inaanu dib ugu laabmin farqaana udhexeeya labada alcazmu calى an laa yacuuda ilayhi abada waa inuu go-aansado inaanu dembigaa dib ugu laabmin laakiin shardi ma aha inaanu dib ugu laabmin hadduu isagoo casmigaa xasiliyey oo la yimi oo go-aansado inaanu dib ugu laabmin ay dhacdo inuu haddana dib ugu dhaco hadduu sidaas marka ay dhacdo waxay noqonaysaa towbaddiisa inay u asaxday oo lama odhanaayo haddii markaa aad dib ugu laabantay casmigu markii horeba xaasil ma ahayn lama odhanaayo ee musir baad ahayd oo dembigii waad ku negayd la odhan maayo waayo israarku dee wuxuu noqonayaa dembigii in la samaynaayo oo la daa'imsan yahay ama qalbi ahaan loogu jiro ama jidh ahaan iyo qalbi ahaanba loogu jiro laakiin qof ka tiiraayooday oo ka murugooday dembigii oo isku ciilkaambiyey oo go-aansaday inaanu dib ugu laabmin shuruuddii toobadda kale hadday dhammaystiran tahay toobaddiisu in sha allah waa maqbuula hadday hadhow dhacdo inuu dib ugu dhaco iyadana toobad kale ula imanayaa lamana odhanaayo toobaddaadii hore ma asixin xadiis saxiixana waa tii ku soo aroortay in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi addoon baa dembaabaya markaasuu ilahay dembi dhaaf weydiisanaya odhanaya ilahay u dembi dhaaf cidaan adiga ahaynoo dembiga dhaafta ma jirti markaasuu haddana waxa way mar labaad ayuu haddana dib ugu laamayaa dembigii markaasuu haddana sidiisi leeg odhanaya mar saddexaad sidiisi leeg markaa ilaahay wuxuu yidhahdaa adnaba cabdii danban facalima ana lahu rabban yakfir اdanba wayaأkhud bالdanbi yacni waxa weeye addoonkaygii waa dembaabay waxaanu ogaaday in rabbi u sugnaaday dembiga dhaafa dembigana wax ku ciqaaba xadiiskuna waxa uu sheegayaa saneeca ruux hadduu sidaa yahay inuu ilaahay ka toobad aqbalayo oo dembigiisa ka dhaafayo naxو hada almuhim casmiga xasilitaanka uu xasilayo waxay ku xasilaysaa inuu ruuxu go-aansado go-aan rasmi ah inaanu dib ugu laabmin towbadduna taa shardiga ku xidhan waa taas ta shardiga ku xidhan towbadda waa taas wey ee ma aha inaanu dib ugu laabmin wallahu aclam